What do you know? I was scared. Must you because something inta idinkaga muuqda magaciisa waa cilmi xaalad adag ayuuna ku sugan yahay. sheekada kale oo la yaab kale waxay tahay bishii Ramadaan iyadoo la soomay yahay ayuu Ilaahay wuxuu ka baryay Ilaahayow bishaan Ramadaan ay dhaafsiinin ee noloshaan dhaafi. subhanallah maantana xaaladdu ku jiro aniga ayaa idin tusi doonee bishii Ramadaan uu Ilaahay wuxuu ka baryay Ilaahayow bishaan Ramadaan ay dhaafsiinin ee nafta dhaafi. subhanallah kan jeclaaday adduunyo maayaba adduunkana maayaba ilaahu nafteeda ilaahu iga qaad nafteeda ilaahu iga qaad rabbiyo raxmaano ilaahu cumrigeeda ii soo gaabay ilaahu laba wiig saddexaad ilaahu ha igu dayan weyno waaxido rabbiyo raxmaan. ninkan inta idinkaga muuqda Soomaaliya waa wada taqaanaan magaciisa waxaa la dhahaa Cilmi. maanta xaalad adag ayuu ku sugan yahay walibana wuxuu sheegay in Soomaalida ay iska afiyaan gabi ahaanba riyooyin xun uu arkay. xaalad adag uu ku jiraa walibana ICU-da iyo koomada qaybteeda ayuu ku jiraa isbitaalka. ninka maxaa ku dhacay maxaa si xaaladaas uu ugu jiraa matii Ilaahay uu ka baryaa loo aqbalay mise xaalado kale oo degdega ayaa ku soo wajahmay. muuqaalkan uga hadlaynaa muuqaalkan adiga waxa ka codsanaynaa muuqaalkan like inoo saar si dad badan uu gaaro. like waa inoo muhiim aad u maasan tahay dad badan uu gaarsiinaya muuqaalka siina share gareey si saaxiibo qurux badan uu gaaro. tan kale waxaan ka codsanayaa weliga Ilaahay waxyaabo kaftana xataa waxa laga yaabaa iyadoo samada furanta xataa in lagu aqbalaa laga yaabaa. marka weliga duco iyo waxyaabo diini ah ku kaftamin wallahi waxyaabo diini ah ku kaftamin. maanta cilmiga aad u wada taqaanaan inuu yahay waxyaabaha ay ku tilmaamaan dadka inuu qaniis yahay waxyaabahaas laakiin maanta horta xaalad adag uu ku sugan yahay wuxuuna Soomaalida ka codsaday inay iska afiyaan xaaladiisana ay adag tahay bari inuu dhiman doono uusan ogeyn. hadda ninkan xaaladan ayuu ku sugan yahay. hadda ninkan intaanan u galin xaaladiisa maalmo ka hor few days back Ilaahay wuxuu ka baryay inuu dilo fiirib isagoo Ilaahay ka baryaya inuu Ilaahay nafta dhaafsiyo. subhanallah kan jeclaaday adduunyo maayaba adduunkana maayaba ilaahu nafteeda ilaahu iga qaad maal iyo magac waxba ma aha nafteeda ilaahu iga qaad rabbiyo raxmaano ilaahu cumrigeeda ii soo gaabay ilaahu laba wiig saddexaad ilaahu ha igu dayan weyno waaxido rabbiyo raxmaano waa habeen saqda dhaxa ilaahu waxaan kaan tuugayaa 3 wiig inaan nolosheeda gaarsiina ilaahu qabrigeeda waa ka dhacay ilaahu rabbiyo qabrigeeda ilaahu waa ka dhig meesii lagu duugi lahay. alxamdulillah aniga intaas baan iga baxaya Soomaaliyay mac salaama waan jeclahay I love you so much ilaahay qay aniga siiya ilaahay. ninka shalay saas u hadlayay aad aragtaan maanta xaaladiisa ma fadhiso. maanta xaaladiisa xaalad adag uu ku jiraa wuxuuna Soomaalida weydiisanaya inay iska afiyaan fiiri. What do you know? I was scared. Must you because something Ilaahay ha ku caafiyo kaftan iyo run iyo waxay ka tahay horta xaaladda isaga qabsatay aniga ayaa ku sheegi doona sababta uu ICU-daas isbitaalkaas ugu jiro aniga ayaa ku sheegi doona isagana waa ku sheegi doona laakiin waxaan rabaa inaan cilmi hal hadal aan dhaho niyow horta qof walba xumaantiisa Ilaahay in qof gaal ah hataa markuu dhimanaya Ilaahay u duceeyso Ilaahow soo hanuuni waa wax diinta islaamka ay nasiixada nooga dhigtay. maanta adiga hadii aad khaniis tahay hadii nolosha aad ka dhacday hadii qof xumaan faafinaya aad tahay xaaladaada haday xaalad geeri tagto anaga waxaan leenahay inaan kuu duceeyno aan dhaano Ilaahayow cilmi maadaama uu yahay ummadeena Nabi Muhammad Ilaahay waxaan ka codsanaynaa in cilmi aad u dambi dhaafto oo ashhaada aad waafajiso. anaga intaas inaan dhahno ama Ilaahayow ku soo hanuuni inaan dhahno waa wax anaga diinteena ina farayso laakiin adiga waxaan anaga kula rabno maxaa ka weyn Ilaahay wuxuu raba ayaa ka weyn wama tashaa'una illa insha Allah. maanta anaga hadaan kula rabno inaan kuu duceeyno oo Ilaahayna uu mar hore ku aqbalay inaadan ashhaadi waxaas buu Ilaahay ku waafajinin
ما وافق جسميس والله هيهات marka cilmiyow adigan kula hadlayaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad waxa laga yaabaa in Ilaahay uu nolol fiican ku siiyay meel aysan dadka joogin inuu Ilaahay ku joojiyay inaad shaqo haysatid dhalinyarada asaagaaga ay shaqo la'aan yihiin caafimaad aad qabto maanta markaad isluuxaysid oo TikTok aad ku dhex jirtid caafimaad aad haysataa bari waxaan waa wax ka haraya niyow Ilaahay u toobadkeen ninkan cilmi ah wuxuu sheegay in isagoo salaad ciidka ka imaaday isagoo salaad ciid soo tugtay in isagoo shaqo u socda isagiyo 4 dhalinyaro isla socda weeshkii ay raaceen masaajid ay ka imaadeen isagii 4 dhalinyaro xaafadaha la kala aaday waa la isku soo laabtay shaqa la aaday meeshii shaqada marka la tagay wuxuu dhahay weeshaan raaci rabnay weeshka anaga aan raaci rabnay ayaa weeshkiga istaagay wuxuu dhahay marka naqaska yaa igu dhigay marka waana xaalad adag runtii isaga ayaan ka sheekaynay anigoo salaada ka soo baxo salaad subax soo dugto qamiiskeeda ee camaamadeeda wato xafiis anaga aaday unako 4 qofood ah wiishkii baa igu xameeyo koontada ka tagtay markaasaad suuxa ku dhex suuxa sidii baa la igu xay isjiinta ay hadaa xanuunsan tahay hadaa ICU ku jirtid iyo wax walbaba Ilaahay ha ku caafiyo mar walba aan ku leenahay Ilaahay ha ku hanuuniyo Soomaaliya idinkana si niyada ugu duceeyo qof walba Soomaaliya iyo qof walba ashaad xumo ku dhiman raba in Ilaahay uu ashaada waafajiyo adigana u soo duceey xumaantiisa wax inaga ma galin laakiin maanta marka qof kale oo walaalka u duceeysid ducadaas adigay kugu soo laabanay hal mar si niyada aan ugu wada duceeyno in Ilaahay uu soo hanuuniyo waxa laga yaabaa maskaxdiisa inay jiran tahay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu soo hanuuniyo wixii xumaantiisa ma faafinayno laakiin anaga maadaama dad islaam aan nahay aan u wada duceeyno insha Allah in Ilaahay uu ku soo hanuuniyo laga yaabaa Ilaahay ducadiisana kama quusanayno hal mar si niyada ugu duceey muuqaalkan like si saarsiina share garay aad u mahadsan tahay kale waxaan rabaa inaan la hadlo dadka arinta Dubai Portability ee gabdhaha Dubai iyo arimaha faxshiga ka socda hadii aad tahay qof raba YouTube-kayga imaaw wixii mowduuca muuqaalaha meeshay ka socdaan Tayzen on Watch YouTube-ka ku soo qor Tayzen on Watch YouTube-ka ku soo qor aad u mahadsan tahay wixii arimahaasna YouTube-ka isku iimaanayna insha Allah bal hal mar ninkan si niyada aan ugu duceeyo